بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أحبائي في الله، عاوى kelimadeennu biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxay ku saabsanaan doontaa ilaa man adraka ramadaan. qofka uu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ramadaan gaadhsiiyo abwaabta khayrka iyo albaabada khayrka ee inuu la imaado la doonayo ayaan wax ka tilmaami doonaa caawa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa ii hor taallaa risaalo aad u qiimo badan oo bacdulfudalaa ay soo diyaariyeen ooguna magacdareen ilaa man adraka ramadaan 150 baab oo min abwaabi alkhayri ana ka hadlaya, yacni 150 baab. qaybo ka mida baan ka boodi doonnaa, laakiin waan soo khulaasaynaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. allah tabaaraka jala wacalaa wuxuu leeyahay: shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum. rabbulciza tabaaraka wa tacaalaa waxa uu noo sheegayaa qur'aanku inuu soo degay bisha ramadaan, inuu alle soo dejiyey tabaaraka wa tacaala. qur'aankuna inuu hanuun iyo hidaaye u yahay bashariyada oo dhan, ilaa ilaahay uu ka yidhaahdo tabaaraka jalla wacalaa qofka ay bisha ramadaani u dhalato ha soomo. faman shahida minkum ashahra falyasumhu. waana markii u dembaysay tadarrujkii uu soo maray soonku, markii u dembaysay aayaddii alla uu yidhi tabaaraka wa tacaalaa oo lagu waajibiyey, oo markaa waajib wuxuu ku noqonayaa calaa kulli muslimin baaliqin caaqilin, wuxuu ku noqonayaa qaadirin muqiimin khaalin min alcawaarid. yacni qofka uu ku waajib noqonayo, in badanna culummadu way tilmaamaano, qofku waa inuu muslim yahay oo waa inuu qaangaadh yahay, an yakuuna musliman baaliqan caaqilan, maskaxdiisu waa inay joogto, qaadiran waa inuu awoodo, muqiiman waa inuu gurigiisa joogoo negi yahay, haweenaydu waa inay daahirta. yacni shuruudaasay culummadu qofka laga helo, ilaahay wuxuu yidhi waa inuu soomaa tabaaraka jalla wacalaa. axibaa'i fillaah, qodobada aan jecellahay caawa inaan oga qayb qaadanno, sida ay walaalahaaba ay u soo aruuriyeen jazaahum allahu khayra. qodobka koowaad oo la doonayo bisha ramadaan abwaabteeda khayrka ka mida oo inaan la imaana la doonayo kow ah al-ikhlaas. waa inaan ilaahay daraaddii, waa inaan camalka u samayno ilaahay wejigiisa, waa inaan oola jeedno, waa inaanan cid kale ku raaligelinin. walidaalika buu rabbulciza wuxuu leeyahay: wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin. muslim iyo yahuudi iyo nasaaro inta kitaab lagu soo dejiyey isku soo duuduubo, mid walba waxa la amray waa laba shay. kow, cibaadatullaahi waxdah, alle in keligii la caabudo, iyo ilaahay in cibaadada gooni looga dhigo tabaaraka wa tacaala, ikhlaasu alcibaadati lilaahi waxdah, in cibaadada ilaahay keligii la siiyo tabaaraka jalla wacala. waxaad ogaataan ayuha almuslimuun
dadka doonaya inay ilaahay u dhowaadaan, dadka doonaya inay cibaadada sidii loogu talagalay ay la imaadaanow waxaad ogaataan laba sharti unbaa camalka lagu aqbalaa. camal haddaad doonayso alle agtiisa in laga aqbalo laba arrimood ilaali. midka koobaad waa ikhlaas, inaadan ilaahay cid kale la baryin, oodan cid kale aadan wax u qawricin, oodan cid kale tala saaranin, oodan cid kale sadaqada u bixinin, camalka oodan cid kale aadan u tukanin. cibaadadu waa inay ilaahay keligii khaalis u tahay tabaaraka jalla wacala. qodobka labaadna almutaabaca, qaabkii uu nabigu wax noogu jideeyey waa inaan cibaadada u samaynaa calayhi asalaatu wassalaam. idan qodobka koowaad haddaan doonayno abwaabta khayrka inaan bisha ramadaan oga faa'iidaysanno, qodobka koowaad waa ikhlaasu alcibaadati lilah. amaa qodobka labaad waa tajriidu tawbati ila allah lilahi tabaaraka wa tacaala. waa tajriidu tawba lilahi tabaaraka jalla wacala. waa in towbadda ilaahay tabaaraka wa tacaala loo barax tiro oo si dhaba ilaahay loogu toobad keeno. yaquulu allahu jalla wacala watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun. si aad u dhantihiin ilaahay u laabta, kamaa qaala tacaala wa aniibuu ilaa rabbikum. warhay rabbigiin u noqdo oo asaga isu dhiiba, wa aslimuu lahu, ilaahay isu dhiiba tabaaraka jalla wacala. wa kamaa qaala calayhi asalaatu wassalaam man taaba qabla an tatluca ashamsu min magribiha taaba allahu calayh. qofka toobad keena qorraxdu intayna ka soo bixin meeshay u dhacdo, ilaahay waa ka toobad aqbalaa. wa kamaa qaala calayhi asalaatu wassalaam ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yugargir. ilaahay toobad addoonka toobadda waa ka aqbalaa mar haddayna dhuunta soo gaadhin. isku soo duuduuba qodobka labaad haddaan doonayna abwaabta khayrka inaan la imaano ramadaanka waa inaan ilaahay tabaaraka wa tacaala si dhaba ugu toobad keenno. suurtagal ma aha ilaahay inaan ku qaabilno qalbi wasakhaysan oo ay macsidu ka buuxdo. suurtagal ma aha inaan meliga iyo boqorkana abuurtay inaan ku qaabilno tabaaraka jalla wacala. haddaba markaannu toobad keenayno oo dembigan ka toobad keenayno, hadduu annaga iyo rabbi noo dhexeeyo ama adiga iyo rabbi idiin dhexeeyo, 3 sharti baa lagaa doonayaa. hadduu adiga iyo bini aadam idiin dhexeeyana 4 sharti wey. qodobka koowaad waa inaad wixii faraha kala baxdo, farta waa inaad ka qaaddo oo aadan sii wadin. qodobka labaad waa inaad farta dhexda ka qaniinto oo aad ka shallaytooto annadaama. qodobka saddexaad inaadan mar kale u noqonaynin waa inaad qalbiga aad ka go'aamiso. 3daasi waa 3da sharti ee adiga iyo alla idiin dhexeeya. haddii dembiga aad bini aadam ka gashay 3dii sharti mid baad ku daraysaa, oo waa maxay? inaad asaga xalaal weydiisato. haddii aad xamatay icafi inaad dhahdo, haddaad xoolo ka qaadayna inaad u celiso, wahaakada. idan towbaddu waa muhiim ayuha almuslimuun. weliba ramadaanka si aan ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu darmanno, walilaahi cutaqaa'u min annaari wadalika fii kulli leyla. allahu akbar. habeen walba allah tabaaraka wa tacaala dad buu naarta ka xoreeyaa. ilaahay ha nagu daro tabaaraka jalla wacala, waana habeen walba weeyaan. qodobka saddexaad adducaa'u cinda ru'yati alhilaal. ramadaanka waxaan ku qaabilaynaa goorta aanu aragno bisha ramadaan. markii aanu aragno inaannu duco aqrino. ducaduna waxay leedahay allaahuma ahillahu calayna biاlyumni waaliimaani waasalaamati waalislaami rabbii wa rabbuka allah, kama fii musnadi axmed watirmidiy. waxaad leedahay ilaahayow waxaad bisha noogu dhalisaa barako. bil barako wadata allow nooga dhig, bil ziyaado wadata allow nooga dhig, bil caafimaadka yagu ziyaado, oo maalka yagu ziyaado, oo cimriga yagoo caafimaad iyo cibaado wata uu la ziyaado. ilaahayow bishan wanaag noogu dhali. ilaahayow bil nooga dhig iimaanku noo ziyaado. ilaahayow bil nooga dhig nabadgeliyo wadata iyo salaam.
ilaahayow nooga dhig bil islaamnimada iyada aanu xoojinno markaasaa waxaad leedahay inanay dad baa qorax dayaxa caabude rabbii wa rabbuka allah hilaal yahow dayax yahow aniga iyo adigaba rabbigaya waa allah maxaa yeelay dad baa caabudo qoraxda iyo dayaxa marka dayaxu waa makhluuq in la caabudo ma aha oo khaaliq ma aha qodobkaana waa qodobka saddexaad ee aanu ku qaabilayno ramadaanka abwaabtiisa khayrka badanna aan ilaahay ugu dhowaanayna tabaaraka jalla wacala qodobka afraad siyaamu ramadaan bisha ramadaan inaan soonno sideen ku soomaynaa dhegayso xadiidka saxiixaynka nabigeenna sala allahu calayhi wasalama man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih qofka bisha ramadaan sooma asagoo yaqiinsan oo ictiqaadsan waajibnimada soonku inuu waajib yahay oo ilaahay waajibiyo arkaanta shantaa ku jiro wa iqaami asalaa wa itaa'i zakaati wa sawmi ramadaan bisha ramadaan adigoo aaminsan wujuubnimadiis waxtisaaban adigoo haddanana ka ajir dalbayo oo rajaynaya in ajir lagaaga qoro camalkan aad samaynayso oo soonka ah in ajir lagaaga qoro maxaa yeelay ixtisaabku waa muhiim waxaad samaynayso ilaahay inuu abaalkeeda ku siiyo waa inaad aaminsan tahay tabaaraka jalla wacala qofka labadaa arrimood laga helo siyaamu shahri ramadaan maca ictiqaadi wujuubihi asagoo aaminsan wujuubnimadiisa iyo asagoo ixtisaab iyo ajir alle kaga dalbayaay natiijada uu helayo waa gufira lahu maa taqadama min denbihi waxaa loo dhaafaa dunuubtiisii hore allahu akbar waxaa loo dhaafaa dunuubtiisii sakaa'irta ahayd oo dhan baa loo dhaafaa walidaalika ayaa kabaa'irtu iyadu waxay u baahanaysaa towbad ayay markaa u baahanaysaa qodobka kale waa qodobka shanaade qiyaamu leylati alqadr habeenka laylatulqadarka la yidhaahdo ood istaagto habeenka laylatulqadarka la yidhaahdo ood istaagto qodobka shanaad man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih kama fi asaxiixayn habeenkaas qur-aanku alla ku sheegay ina anzalnaahu fi leylati alqadr wamaa adraaka maa leylatu lqadr leylatu lqadri khayru min alfi shahr kun bilood adigoo cibaadaysanayay oo maalin oo dhanna soomanaa habeen oo dhanna taagnaa ajirkii laguu qori lahaa ayaa habeenkaa laguu qorayaa waana waxa ummaddeenna lagu khasisay ama lagu khaas yeelay oo umamkii kale aan la siinin habeenkaa fadliga uu leh yacni qofku alla waafajiyo khayr oo dhan buu alla waafajiyey qofkii habeenkaa aan la waafajinina waa maxruum waa qof khayr oo dhan lagaa xarimay ilaahay khayrka nagama xarimo tabaaraka jalla wacalaa haddaba qodobka lixaad waa alijtihaadu fi lcashri alawaakhir tobanka dambe in lagu dadaalo ayaa waxaa la yidhaahdaa alijtihaadu fi lcashri alawaakhir kaana calayhi asalaatu wassalaam idaa dakhala alcashr axya alleyla wa ayqada ahlah wa shadda mi'zarah kama fi saxiixayn hadday tobanka dambe la gaadho habeenkuu noolayn jiray cibaaduu ku noolayn jiray ehelkiisana waa toosin jiray guntigana waa adkaysan jiray ama waa cibaaratun waa kinaayatun can ictizaali nisaa haweenka waa ka fogaan jiray ama ma ahane guntiguu adkaysan jiray macnaha cibaadadu u xidhxidhan jiray intaba culummadu way ku fasireen idan qodobka lixaad waxaana laga doonaya ayuha alaxiba inaannu abwaabta khayrka sooma doonayno soo dembi dhaaf ma doonayno inaannu ramadaanka tobankiisa dambe aan weliba aad u dadaalno annagoo ku dayanayna rasuulkeenna calayhi asalaatu wassalaam waxaa kaloo iyadana ku jirta wa ayqada ahlah ehelkiisuu toosin jiray maca alasaf ninbaa asagu cibaadaysanaya laakiin ehelkiisa aynan cibaadadu uusan u toosinaynin wa ayqada ahlah reerkiisuu nabigu toosin jiray sala allahu calayh wasalam qodobka toddobaad alcumra abwaabta khayrka waxaa ka mid a in
ramadaanka la soo cumraysto muxuu yidhi nabigeenna sala allahu alay wasalam alcumratu fii ramadaan tacdilu xaja aw xajatan maci kama fi saxiixayn qofka bisha ramadaan soo cumraysta cumradaasi waxay u dhigantaa xaj riwaayo kale ama shaku min araawi ama nabigu wuxuu yidhi sal ly salam qof aniga ila xajiyey buu la ajriya yaa la xajiyey nabiga sal ly salam dee abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy iyo hooyadana caaisha saxaabadaasoo dhan baa la xajiyey marka ajir saxaabi camal baa tahay way macnaheedu waaday arkin ma ahane waad ila socotay ajirkii saxaabada loo qoraa laguu qorayaa idan qofka fursad u hela inuu soo cumraysto ajirkaa aadka u weyn ka'annamaa adigoo nebi moxamed sala allah alay salam la xajiyey ayaa ajirkeeda laguu qorayaa qodobka sideedaad alictikaaf ictikaafka waa in masjidka lagu nogaado ayadoo niyo la socoto wakhti mucayan ah kaana calayhi asalaatu wassalaam yactakifu fi alcashri alawaakhiri min ramadaan tobanka dambe nabigu calayhi asalaatu wassalaam masjidka ayuu ku nagaan jiray rag iyo dumarba wayna u bannaan tahay inay ictikaafaan oo ay masjidka ay degaan tobanka dambe oy ilaahay ku caabudaan tabaaraka jalla wacalaa qodobka sagaalaad taftiiru saa'im yani taftiiru saa'im qofka sooman in la afuriyo yacni qof sooman qofka u afuriya ajraadu cajaa'ib badan buu leehay bilmunaasaba maanta xaaladda ummadda muslimiinta ah cumuuman khusuusan ummadda soomaaliyeed meesha ay marayso gaar ahaan ummadda ka qaxday ayagoo qaxooti ku ahaa waddanka yeman waddankoodii iyo dalkoodii hooyo ku noqday ayagoo qaaqaawan oo aan waxba haysanin waxay mudan yihiin dadka muslimiinta ah nin walba uu heli kara inuu maxaa la yidhahdaa qoys uu kafaalo qaado waana arrin aan soo jeedinayo waa arrin aan doonayo baaq ahaan inaan ummadda muslimiinta ugu diro oo ah intay walaalaha boosaaso iyo walaalaha berbera iyo walaalaha jibuuti meel walbo iyo walaalaha muqdisho meel walbo ay ka degeenba intii ina liiskoodii waa la hayaaye in la yidhaahdo waxaan haynaa maxay intaasoo qoys baanu haynaa oo aan caawa waxay ku afuraan haysanin kadibna la yidhaahdo qoys walba qoys ha qaabilo waa wallaahi ummaddu hadday sidaa samaysaayey waxaa weeye waxay gaari lahayd wanaag aad iyo aad u badan walacalla ilaahay waxaa laga yaabaa cid arrintaa ajiibta in la helo sida aanu rajaynayna biidnillaahi tabaaraka jalla wacalaa walidaalika baa nabigeennu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man fattara saa'ima qof sooman qofka afuriya ajir intee dhan buu leeyahay qofka sooman ajirkiisii ajirka uu soonka ka helayey mid lamida baa loo qorayaa ayadoo oon wax lagaga nusqaaminaynin ayadoo kii soomana ajirkiisii aan laga nusqaaminaynin ayaa ajir kaamila ayuu alla siinayaa tabaaraka jalla wacalaa xadiidka tirmidi baa soo saaray waa xadiidun xasanun saxiix ayuu leeyahay raximahu llahu tabaaraka jalla wacalaa qodobka tobnaad waa qiraa'atu alqur'aan wa tilaawatuhu waa kitaabka qur'aanka oo la aqriyo oo weliba lagu tadabburo qaala tabaaraka jalla wacala afalaa yatadabbaruuna alqur'aan war qur'aanka miyaydan dhuuxaynin oo aydan hoos u gelaynin oo aydan dhadhaminaynin qur'aanka ujeeddadii laga lahaa miyaydan hoos ugu dhaadhacaynin am calaa quluubin aqfaaluha mise quluubtiinnaba qufullo ayaa ku jajaban walidaalika baa nabigeennu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay iqra'u alqur'aana fainahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih walxadiidu fii saxiixi muslim war qur'aanka aqriya qur'aanku wuxuu imaan doonaa maalinta qiyaamo weliba ayadoy suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan ayagoy hor kacayaan oy hoggaaminayaan qur-aankii kalena uu daba socdo ayay u shafeeco qaadayaan qofka way u ergaynayaan oo ilaahay bay u tegayaan oo ay leeyihiin
hurdadii buu nooga tegey raaxadiisii buu annaga nooga tegey maalintii waa nagu camalfalayey habeenkiina waa nagu tukanayo waa nagu cibaadaysanayey rabbiyow jidhkiisa cadaabka ka ilaali ramadaanku markuu soo galo abwaabta ugu waaweyna ilaahay loogu dhowaado waxaa ka mid ah qiraa'atu alqur'aan xataa salafku way joojin jireen kutubta kaley aqrinayaan waxay u jahaysan jireen qur'aanka ehelkooda iyo carruurtoodana waxay u jahayn jireen ama u jeedin jireen kuna boorin jireen qiraa'atu alqur'aan ayadoo weliba lagu tadabburayo xataa culummada qaybo ka mida 60 jeer bay dhammayn jireen iyo inta ka hoosaysa intaba sidaa daraaddeed qof walbow ramadaanka ayaan lagaaga hormarin inaad koontada aakhare kaaga furan inaad ku shubato qiraa'atu alqur'aani oo halkii xarafa 10 ajir baad ka helaysaa qaala sala allahu alay wasalam man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha laa aquulu alif laam miim xarf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ساسو نبينا الله صلى الله عليه وسلم يعني هلكي حرف حسنة أيا لجهلي هلكي حسننا طبعا أجر لصيل لابلابيا إيا وليبا إن كبدا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها قفك هالحسن لي مادو طبعا إيا كبدا بالله لابلابي لكن رمضان كي يصونك أصو ترى من ملهن سيدو حديث القدس قال لكم تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أنا قابا كأبا المرينة يا أنانا إسكالي ملائك وحي ترسبا وكبدا يهي أجرك قفك صوما مركا أدقو صومنا وأجرك إلهي كلي حسابي زقارنا كور هدانا القرآن كي أغرس كي سأتكو درسته قراءة القرآن يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قضب كاكوية طبناب تعلم القرآن وتعليمه يعني القرآن كإن لبرته أودتك لبره قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه دضوا وحايدكم خير بدن سادو دنتهين قف قرآن كبرتي ددك نصيبري مركا قضبك يهرون للشرح يهي أما قضبك لم يتبناد وذكر الله وحسك الله حسك الله ذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير حديث كان نجيسو قرآن كانت تردوا بكبدين فاذكروني أذكركم والإحسة والذي الحسة ياي أيها الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات رجا إن بدن الله حصى إيا دمرك إن بدن الله حصى أمانا سورة الأحزاب إن المسلمين وحالقوسوا ختمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما نبينا صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كو درجات كوهر مري ألا أبتيس تبارك وتعالى وكو إلهي إن بدن حصة أحاديث الذكر كسو أرورت إيا قرآن كوي بديهن لكن قضبك الله يتبنا نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كيس الليست ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله ورما إذين شيغا ما إذين كغا ورما أعماش الله أوغو دوانيسان أعماش أوغو خير كبضان كوا أوغو الطهران أوغو عجائب كبضان ألا أكتيسة كوا أوغو الدرجات كسرية كوا إذن كخير بدن إنا الذهب إيا فضة إيا الدولار إيا كورونا إيا شلنا إراد بحسان وحا إذن كخير بدن ما إذن كشاكيا إنا العدو إن الله كورانتانو وقانا أها وجهادكي كدبنا أي قورتا إسكتشرتانو أيقنا إذن لايان إذن كورا الليسان قالوا بلى ما قال الشيخي وأعمالكو وأوغو خير بدن وكو أوغو الطهيران أوغو عجائب بدن ألا أبتيسة وكو أوغو الدرجات كسرية وكو كفضي بدن صدقة كستود بحيسو
وكوا كفض بدن جهاد والبوض قشو قالوا بلى قال ذكر الله قالوا بلى قال ذكر الله إذا وحلينا هي أعماش إيا أبواب تخيرك إلهي اللي قلنا وانا يبيش رمضان وحاكمذا ذكر الله حسك الله أيا كمذا تبارك وتعالى أما قضبك صديقي الطبنات الاستغفار وما أدراكم محاد إذن أغيسيي قيمها إيا درجة أي استغفارت لله وحا جائبوي ولذلك أي إلهي إنبضا قرآن كيسرنا وشيء يعني وامحي فقلت استغفروا ربكم وسورة النوح إنه كان غفار استغفروا ربكم والقوم النوح إيا قوم والبابا استغفروا ربكم وربك دم بالناف كطلبة إنه كان غفارا ميراها لغا قرانيا وإن سمد الروبك لغا سودايو للكنا واحد دوغ يداق خجر وصوصار إلى يحيري يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين حولها إيو حال إذين بدنا يا عرورت ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا للكنا بيرئي بساطين بنغنيا محانا مغن استغفار هدو قفكو استغفار تبديو إلهي تشركيس عافمات بدن بوصية هديو حنوكو يمادنا متكو الصبرو كردقا إلهي أرزاقدو أغو واسعية علمكو الله أغو واسعية واتقوا الله ويعلمكم الله يعني استغفار توحا كتر أمني إيا برواقو قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريق هدي استقامة يتوصنان لا إيمان لهايين أو استغفارتو أي كوكة إلا أسقيناهم ماء غدقا رب نبعوا وين بانوا السمدك كين لهين قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا دل ميل دقن هدي إيمان لا إيمان لهايين توصنان لا إيمان لهايين واستغفارتو أي كوكة هاي معي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وحان أفر لهين سماوات كبركات ذي نلك أيان أفر لهين استغفارت عجائبك إلى هاي نبيقو انتو النولا أمدينا حتى قال يا مسلم با إلهي تبارك جل وعلا وحو قرآنك نوغو شيء إنو سن عقاب إيا عذاب أمده ونبا بإيا إنو سن كوكيني مدام النبي محمد نولي صلى الله عليه وسلم نبي محمد مركو انت كدبنا أمده انت استغفارت الله إيمانيان إلهي إنو سن بابئينين لقيس سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون انت النبي محمد ودحجوكت أمة الدعوة وأمة الإجابة لبضبا إلهي مصيبة بإسكم كينا يكل قد مركا دمتك كدبنا انت استغفار سنهيان إلهي مصيبة بإسكل قد كما كينا يمرب الله تبارك وتعالى ولذلك ما في سنن أبو داود والنسائي أبو عبد الرحمن النسائي وحكوص أرورين النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب يعني قفك استغفار اللازمة أو دائمة أو أنكتجن مرها لقى قرنا يوام حي جعل الله له من كل هم فرجا هم والبا إيا مروغ والبا إيا والبهار والبا إيا عريري والبا أوقفك كوي مادا إلهي الباب أغفره الله أكبر ما أنت إن بلن با شاقنا شيخ ويسو دعي مروغدن با يهيستا عاوة داوة ذي باد هيستا مال فريسو سو ويسيسو كدبنا أستغفر الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أوض أمانته سبحانه جل وعلا ربي أوض حمانته كن الزهدو سبحانه جل وعلا ربي أوض قدر يسود ويليسو وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ربي إنا قدر إنه
oon weynaynoon xuquuqdiisa siinaa naga maqan siduu alla yidhi maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara war maxaa idinku dhacayood alla la weynayn la adihiin tabaaraka jalla wacalaa wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska bikhayrin fahuwa calaa kulli shayin qadiir wahuwa alqaahiru fawqa cibaadih wahuwa alxakiimu alkhabiir qul ayu shayin akbaru shahaada قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون سورة الأنعام الله تبارك وتعالى آياتك العلس أي ألكم تبارك جل وعلا تلمامية ألا عدك وين ما جرت ألا عدك وين ولا قدري ما جرت تبارك جل وعلا وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم تصبيح له يتحميده يتهليشه يتمحل لذا نزهيد رب العزة تاسع نغفلا ومحل لذا فرج كالنوفرس يعني من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج عريري والبودر انت ضي عريري والبودر انتو إلهي الله تبارك جل وعلا هذا الله الله بته وإلهي إن بدن أدم داف ويديسته إلهي باكوفر يا تبارك وتعالى قف والبو كلمة المقلي متكلم كان قبل الله إيا أنت إن مقلي شيء أنت إن مقلي دون تعباي في الله بل وحال سميننا أنت تجرين عاوة أن قبل الله مروجك هذا درينتو ملك لها آذن سوي سيسو لبرق عدوتكو استغفار لفريسو قلبك أجر سو حاضري كلماتك أشياء سلام معاني ذو ضروح والله الذي لا إله إلا هو وحضرك دونتا مرئي معاني انشراح الصدر إيا فضيد شركة أغنى إيا إرادا إنما وحبكو عصلان الدنيا دنا إلى وحقيمة أبا أين كلالها نبال أركي دونتا ورزقه من حيث لا يحتسب مال أوسن مليسنين الله وكأرزقيا قال تعالى يلا وحوري سبحانه جل وعلا أكثر من آيات كبضن بو الله وحولاي والإلهي كبقى ومن يتق الله يجعل له إيش مخرجا قفك الله كبقى إلهي دريشذي الباب إيا مالوسن فيلنين أي إلهي كأرزق تبارك جل وعلا قضب كأفري طبنات إسباغ الوضوء أعماش أوغو عجائب بدن أحبائي في الله oo lagu galo jannada lagu galo oo abwaabul khayrka kamida ramadaanka waa inaan weysada aan ku xeel dheeranaa weysada marka la weysaysanayo يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره والحديث في صحيح مسلم قفك ويسيسته ويسدنا قرحية وصدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسيسته يري ويسيسته محوه لياء النتيجة دنبيديسو waxay ka daadanayaan ama u daadanayaan sida ay jirkiisu biyuhu oga daadanayaan hatta dambiga u dambeeya cidida hoosteeda biyaha ka daadanayo raacaya Allahu akbar wa ajib ولذلك بأحد الصالحين انتو سووا سيستيبي يو اوي بالليل محل اوي سابا ليل عدة انهور استاقي دونا وينن كذا لأوي يابل أنك ويسادا عدة انهور استاقي انه عليس بدن ومايس إلا من رحم رب العباد مركا إسباغ الوضوء ولما إسباغ الوضوء على المكاره أو عند المكاره يعني مركا ينفط ولما أي لبسان يسوي قبو iyo wax lamida marka uu jiro marka acmaasha ugu waaweyn ee jannada lagu galo waxa kamida maxay weysada in lagu xeeleerado dambiyada lagu dhaafo qodobka 15 الشهادة بعد الوضوء marka la weysaysto kadib in tawxiidka lala imaado يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين. انت سمي أدكتاي انت سمي يديرتاي ما حقا ويقامنت لكن معاني ذا كجرتي يمنها تقبرنا إسلام ذا إيك برات معاني ذا إيك أشهد أن لا إله إلا الله توحيد خالصة وحن عضينا يا أن كنا واقع يا قلبنا كقرية ألا عبادة حق لإنس موجود أهان أو سنجر إلا الله توحيد خالص وأشهد وحاكلا قرية عرب كان كذا واقع حبنها أنا أنوه قامنيا أن محمد رسول الله عبده ورسوله نبي محمد إنه يا صلى الله عليه وسلم إنه يا أدونك الله يا رسولك الله صادره صدرات النبي وحو لا يمد بان رمينيا او امركيسان قادنيا او وحو ريبان iga reeban ka haraya oo sidoo Allah loo caabuday yiri baan u caabudaya wana macnaha muhammadur rasulullah tasdiiqu fima akhbar ta'atu fima amar ijtinabu ma naha anhu wa zajar alla yu'bad Allah illa bima shara muhammadur rasulullah afarta macna ilaa marka waa inaad اعتقادسنتها نبي محمد بن رمينيا معناه وحاوي وحو لا يمد بان هرتا رمينيا جملة وتفصيلا بدون أي تردد وبدون أي شك وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وحا أمريبان لا إيمانيا وحا أريبان كهريا سيدو الله لو عابدي يريبان لو عابديا معناه محمد رسول الله وتا معناه أي ومذا أباها لنا عروتنا برنو نفتنا كذب مركاسا وحل الله اللهم اجعلني من التوابين الله يا وحد يقدرتا أو أدغد مدكتا من جملة التوابين كوا كوسو النغضة كوسو اللابتا أدغا كو توبت كينا دنبي قوضا قرتا تقصير كودية قابين تودا قرتا الله يكوى يقدر وحايا درا قف مسلمون ألا أسر نقرين قف مسلمون ألا أتوبت كينين سيدا النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نعم مركب ابن آدم باتاي وحد مرول بعض بنانيال أتهي أو بنانك أتهي لا قف إيا خطأ وإلى الله النقطة تبارك وتعالى اللهم اجعلني من التوابين أي من جملة التوابين واجعلني من المتطهرين كوا أذيك كوي سيسته وجهه دقة حبنه الله تلقى دقة كوا قلبي قوضا نظيفية حمانت إيا الشرك إيا الشبهة إيا الشهوة إيا محل حمانت إيا الضغينة إيا حاسن ماذا كوا كان نظيفية قبلية الله يقدر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين انت سوى معاني ذي نتيجة في هذا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء والحديث في صحيح مسلم جنة الباب جنوين كالباب ذا الله فرا مركاسو مد الله مدو دونو أياك قلنا الله أكبر ما حد فوقش جنة waxaad ku gashay kalimaadka markaad weysaysatay kadib inaad kalimaadka ku dhawaaqday oo aad tiri ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin futihat lahu abwabul jannah الثمانية سداد الجنة الباب كان لافرا يدخل من أيها شاء من الله مدو دونه أيوك قرا أيو نبي يري صلى الله عليه وآله وسلم قضب كليحيتهم صلاة ركعتين بعد الوضوء ويسدي كذب إلى لبر ركعات آتكت ويسدي كذب إلى لبر ركعات آتكت الله أكبر وإلى لبر ركعات آتكت مركز ويسيس كذب تلو محاكو تشير أو أجره حلقيا ما إلى ضهضوا عمل فضط ما عمل فضط عدو الله وافاتشيه وما سمينكت ما قدشر با انتاد ويسيستي آذن تكني أجرك كدافيا انتو ليه ايك أرقر إضافيا يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما انت وافير هذا انت نتيجة أنا قاني نبينا صلى الله عليه وسلم حليه
أحد متشرو ويسيسنيا ويسدنا قرحنيا وركا ديساد هذا ماشا دنبي دافك وين سو سودا iyo ballanqaadka jannada qofka soo weysaystay maya fayuhsinu alwudu waysada qurxinaya maxaa laga wadaa siduu rasuulku u weysaystay buu weysaysanaya sidii naloo amray buu u weysaysanaya oo nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam weyse kadib wayusalli rak'atayn marka laba ragcadood tukanaya ma jiro laba ragcadood kaliya miya maya allah laba ragcadood maaha yuqbilu biqalbihi wa wajhihi calayhima qalbigaagu iyo wejigaagaba waa inaad alla qaabilisaa qalbigaagu waa inuusan meel kala aadin hadduu saa waadana waa inaad soo celisaa khushuuc laba ragcadood oo khushuuc lagu tukadaa annaga markaan salaada galno ayaa qaadadan meel dhignaa nagu soo xaadirta haweenku waxay leeyihiin caado ay dhahaan naheblaayo haddaad wax ilowda laba salaad uun gal salaadii baa laga dhigay wax lagu xusuusto adduunyadii iyo waxa la midka ah walaa xawla walaa quwata ila billah sidaa daraaddeed ayaa waxaa sharti ah si ballanqaadka iyo jannada aad u gasho inaad khushuuc ku tukato dhegaysa hadda natiijada ilaa wajabat lahu ljanna ilaa qofkaa janna u waajibaysa waa kee wuu weysaystay kow weysadii buu qurxiyey laba ragcadood oo khushuuca buu tukaday saddexdaa qofka laga helo ilaa wajabat lahu ljanna walxadiidu rawaahu muslim soo cajiib ma waa wax aad iyo aad u yaab badan weeye qodobka 17 adducaau bacda aladaan marka la addimo ducada soo socota man qaala xiina yusmicu nidaa yacni qofka aw yasmacu nidaa yacni man qaala xiina yasmacu nidaa marka uu adinka maqlo qofka dhaha allahuma rabba hadihi addacwati attaama waasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiilata walfadiila wabcaثhu maqaama maxmuuda aladii wacadta ducada waa intaa ma wax dheer ba ma wax adag ba wax badan baan xifsannahay oo qusacbanaad oo khuraafaada laakiin intan markii la xifdiyo la dhoha la xifdiyo waxaa lagu dhihi sheekhu af soomaali ma lagu aqrin karaa meeqa ayaanu xifdisannahay waxyaabo badan oo shayaatiin ah laysma weydiiyo laakiin markii la yidhaahdo sheekhow faatixa ducada af soomaali ma ku ducaysan karaa rukuucda iyo sujuudda yaad maanta oon arka iyadoo lagu weydiinayo maca ducooyinku ay gaagaaban yihiin kitaabka kooban ee xusnu muslimkan uu ku yaallo xisnulmuslim salaadan loo dhawaaqay tawxiid bay sooma xustaan allahu akbar sooma ahayn kelimaadkaa lagu dhawaaqay ee tawxiidka ah allihii iska lahaayo waa kelimaad dhammaystiran salaada loo istaagi doono mar dhow wasalaati alqaa'ima allatii qaruba qiyaamuha salaada mar dhow loo istaagi doono allihii iska lahaayo waxaad siisaa nebi moxamed sala allah alay wasalam darajada loo yaqaano alwasiilata walfadiila waa laba darajo nabigu leeyahay jannada uu ku leeyahay calayhi salaatu wassalaam oo midna culummadu waa loogu tegi karaa bay dhahaan midna maba loogu tegi karo maqaam lagu mahadiyana makaan iyo boos lagu mahadiyana alla u soo saar waana marka ummadda oo dhan intii meel layskugu keeno nebi aadam loo tagoo la yidhaahdo maanta adiga ayaa arrintan ilaahay nooga shafeeca qaadi kare noola hadal khalaqaka allahu biyadih wa asjadaka adigu kuu sujuudsiiya malaa'igtiisa ilaa aakhiri oo marka uu nebi aadam dhaho nafsii geed baan cunay nabi walba la soo maro nabi walbana uu dhaho nafsii ayuu nabigu carshiga hoostiisa ku sujuudi doonaa calayhi salaatu wassalaam ilaah buu ammaani doonaa weliba ammaan usa weligii ammaanin markaasaa la yidhi doonaa irfac ra'saka washfac tushafac was'al tucta marka maqaaman maxmuuda wabcaثhu maqaama maxmuuda casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuuda marka waa maqaamkaasoo waa maqaam lagu mahdiyo maxmuud waa mid lagu mahdiyo ummadda dhan buu ilaahay tabaaraka wa tacaala shafaacadiisa iyo sababkiisa meesha lagaga dareerin doonaa marka ducadaasi haddaan ku ducaysto adinka kadib maxaa dhacaya xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama nabigu wuxu leh sal ly slam
anigaa qofkaasi maalinta qiyaama shafaacadayda ayaa haleelaysa shafaacadayda ergadayda shafaacadayda gacantaan qabanaya ayuu nabigeenu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qodobka 18 adducaau bayna alaadaani waaliqaama cibaadaadka ugu cajaa'ib badan ee jannada lagu galo waa ducada aad ducaysataa adinkiiyo aqrimka dhexdooda yaquulu sala allah alay wasalam adducaau bayna alaadaani waaliqaama laa yuraddu ducada aad ducaysato adinka iyo aqrimka dhexdooda lama celiyo saxaabadu halkaas markii uu nabigu yihi sal ly slam ayay dhaheen marka qaaluu maada naquulu yaa rasuula allah yacni ducooyinku way sii kala fadli badan yihiine saacaddaa maxaan ku ducaysanaa markaasuu nabigu yihi sal ly slam waxaad dhahdaan salu llaha alcafwa waalcaafiya ilaahay waxaad weydiisataan dembi dhaaf iyo cafwi iyo inuu jidhkiinna caafimaad idiin siiyo caqligiinnana caafimaad idiin siiyo caqiidadiinnana caafimaad idiin siiyo alcafw waalcaafiya ayuu nabigu noona baray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam arrimaha lagu badbaado waqtigaan rabaa inaan soo aruuriyo biidni illaahi tabaaraka jalla wacalaa waxaa ka mid ah kahratu sujuud waana qodobka 19 kahratu sujuudi in sujuudda la badiyo oo lagu dheeraado inta awooda haddaadan imaam ahayn dhegaysa xadiidkan saxiixa fii saxiixi muslim nabigeennu sala allah alay slam wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun addoonku goortuu ugu dhow yahay rabbulciza oo subxaana rabbiya alaclaa u leh subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waaruux uu ducaysanayaay allahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu wacalayka tawakaltu wabika xaakamtu yacni cajaa'ib rabbi baad la hadlaysaa tabaaraka wa tacaala adiga oo wejiga ku haya dhulka ku haya xubnahaaga meeshii ugu sharafta badnayd wejigu waa baasaboor bay soomaalidu dhahdaa ayaa dhulka u dhigtay rabbulciza tabaaraka wa tacaala aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun haddaba arrintu sa hadday tahay wuxuu yidhi nabigu sal ly slam fa akhiru ducaa haddababa ducada badiya riwaayo kale waxay leedahay wuxuu alla xaqiiqe ku yahay in laydinka ajiibo wuxuu alla xaqiiqe ku yahay in laydinka aqbalo arag marka waa daawo marka waa daawadan in la qaato waa daawo aad iyo aad run ahaantii muhiim u ah qodobka 20aad waxyaabaha lagu galo waxaa ka mida ramadaanka weliba khaasatan almuxaafadatu calaa salaati taraawiix yacni salaada taraawiixda in la ilaaliyo ayib kolka hore dabcan waajibaadka ayaa ka horeeya oo salaadaha waajibka in la ilaaliya faradka ah kadibna taraawiixda in lagu dadaalo afdalu salaati dhegaysa xadiidka fi saxiix muslim afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleyl yacni fariido kadib salaad farad ah kadib salaad la tukado waxaa ugu fadli badan salaada habeenkii la tukado taraawiixdana waxay ka mid tahay salaatu lleyl wa min alleyli fatahajad baa nabigu yiri sal ly slam habeenka xaggiisa ka tuka baa nabigu yiri sal ly slam saxaabada markii la ammaanaya ilahi muxuu yidhi kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun habeenkii wax yar bay ka seexan jireen mar labaad asagoo ammaanaya alle wuxuu yidhi tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici dhinacyadooda waxay ka fogeeyaan furaashka raaxadiisa ayay ka fogeeyaan marar kale alle wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala wa min alleyli aayaadku way fara badan yihiin yacni yaa ayuha almuzamilu qumi alleyla ilaa qaliila saa daraaddeed salaatuleylku waajib bay waagi hore ahaan jirtay kadib baa sunno loo bedelay 1 sano oo kaamilana u dhexaysay ina rabbaka yaclamu baa lagu nasakhay yacni waxaa weeyaan yaa ayuha almuzamilu qumi alleyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila marka in lagu dadaalo maxay faraa'isha kadib in lagu dadaalo maxaa la yidhaahdaa sunanka iyo salaatuleylka iyo taraawiixda qodobka 21aad adducaau mutlaqaa
إن لابد لا دعاء دوضوها مطلقا أيضا بوس يقولي الله. ولذلك ما النبي صلى الله عليه وسلم وحيري حديث القدسي الله نوغس ولنيو إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أدون كيو مليه سأكتي سأرهي وحو إيقام ملايستو مركاد إلهي مركاد دعاي سنيسو يعني إلهي وحو ليهي أدون كيو مركو إبارييو وحو إيقام ملايستو ما سينيا وحو إيقام رجينيو ما سينيا وحو إيقام دونيا سينيا وحو إيقام مغنجليا كإرالينيا أي ربي لهي وحديث القدسي سبحانه جل وعلا. قضبك كوبي لبي لباتنات والزكاة بمعنى وحويا والزكاة إلا بحي زكاة الفطر خاصة ولبا هذا آد بيوسي واجب نقريسا ظروفته هذا أنه مرينه مركا قفل بالزكاة الفطر رمضانكم مركو وحير كدي من يهي إنه سيبحي بإذن الله تبارك وتعالى وقضبك صديحي لباتنات الإنفاق في سبيل الله إن صدق الله بدي قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله بدي الله وحلي واحد هرمر ستان ونفتي إنه هرمر سارو من خير نكرة خيركم إنتو دون من مال wax alla waxaad naftiina u horumarisaan oo maala haba yaraadee ilaahay agtiisa ayaad kala kulmaysaan buu ilaahay tabaaraka jalla wa ala. walidaalika baa nabigu yidhi sala alla alay wasalam as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-maa'u an-naar. yacni sadaqadu waxay damisaa dembiga iyo gefkay damisaa sida ay biyuhuba ay u damiyaan maxaa la yidhahdaa naarta ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. sadaqa lala baxana waxaa ugu fiican afdalu sadaqa waxa weeyaan waa qofka oon wax badan haysanin waxa uu bixiyo ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. weliba midda lala siraysto ayaa mar walba fadli badane laakiin markay sidan oo kale musiibadu u dhacdo inaad sadaqada la jahartaanna waxaa weeyaan dad badan baa ku dayanaya. in tubdu sadaqaati فنعم ما هي هذا صدقاتك اللي جهرتها ووحفي عن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا صدقنا إلى نبضنه حالضها إيا واختيالك أنه كجره إيا مرحلة أنه مرينه وأيضا رمضان وضدك أوباهن أجورت أيا الله والله بيا ولبا وحان به لها قف والبو صدقنا الله بحيثو كليها كوية كانين درسكاga qofka aad garanayso saaxiibka oo aad isku fiican tihiin qaraabi iyo qoys cid walba oo aad keeni karto inaad keento biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. allah waxaan weydiisanayaa inuu ramadaanka uuna gaarsiiyo soonkiisana uuna waafajiyo kuwa loogu dembi dhaafayana ilaahay uu nagu daro tabaaraka jalla wacala. wa ilaa hunaa halka ayaanu ku soo dabraynaa duruustii aanu wadnayna halka ayay qolka banaatul muxsanaat ay noo joogaysaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala inta aanu kaga soo laabanayno ka soo noqonayno ramadaanka iyo fasaxyada. astawdicukum allah subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. waxa uu keenay baan raacaya